kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan waxaad kusoo dhaataan waraysi gaar ah oo aan la yeelanay wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya Professor Ahmed Aidiid Ibrahim oo socod dhawaan magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan ku yimid. wasiirka ayaan noo soo gashay stuudiyaha magaalada Khartoum ee SNTV inuu waraysi la yeesho. wasiirka wuxuu imika la fadhiyaa xafiiska wareen bal waxaan weydiiyay wasiirka mudane wasiir bal socodkiini magaalada Khartoum aad ku timaadeen waxaad naga warbixisaa waxyaabihii inta badan aad la kulanteen iyo waxyaabihii aad ka wada hadasheen. bismillahi raxmaani raxiim horta waa ku mahadsantihiin fursaddan aad siiseen inaa macnaha ugu warsataan oo macnaha aada u baahisaan ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin. waa run waxaan soo gaarnay annaga Khartoum safar kadib markii aan helnay yeerid oo rasmi ah oo macnaha ka helnay invitation rasmi ah wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista ustaad Professor Khamis Jokanda in la yiraahdo marka alxamdulillah arrintaas ayaan ku imaanay annaga waqti ah ilaa dhowr qof afar qof ah ka kooban saddex wasaaradda iyo jaamacadda Banaadir professor oo ka socda ayaan ku imaanay meesha waxaan u imaanayna waxay ahayd danaha Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta inaan kobcino qaybta tacliinta iyo cilmi baarista marka waxaana ujeedadu ahayd in aan iskaashiga iyaga dowladeed macnaha dowladda Soomaaliya iyo dowladda Suudaan aan iska kaashano xagga waxbarashada maadaama ayagu ay xoogaa aan ku tirinayno inay nooga horeeyaan xagga waxbarashada iyo thaqaafadda iyo wax walba in aan waxaan ka kaalmaysan karna aan ka kaalmaysano waddankaas kana codsano ardayda tirada badan oo noo soo baxday inaan bal wax deeqaha aan ka helno. runtii waddanka Suudaan waa waddan jecel ummadda Soomaaliyeed wax badan la qabtay gaar ahaan qaybta waxbarashada wax badan bay kala qabteen oo maanta haddaad fiiriso wadamada ardayda Soomaaliyeed wax ka bartaan wadamada ugu badan bay kamid yihiin dibadaha waddanka koowaad baan dhigi karnaa ilaa 4,000 ilaa 5,000 arday oo Soomaaliyeed ayaa wax ka barta meeshaan iskugu jiraan kuwa ay ujeedkooda iyo waalidiintooda ay ka bixiyaan iyo ehelkooda iyo kuwa deeq ku bartaba waxay ahayd anagu kulligood wada dadaalaynay waxaan u imaanay waxay ahayd saan kulli ku anfici lahayn haddii kii deeq bixiyaan aan heli karna inaan deeqaha wax laga dhimo waxaan ka wadaa kii lacag ku dhigan jirayna in aan ka codsano bal in wax laga fududeeyo macnaha rusuumta laga yareeyo kuwa deeqda wax ku barta deeqdana laftigooda waxaa ka kala dhiman in loogu daro maadaama deeqaha inta badan aysan ahayn deeqa wada dhamaystiran oo laga yaabo deeqato inay ku egtahay keliya hadday rabto galaaska keliya oo macnaha qofka inuu waxbarashada un ay lacag la-aan u tahay laakiin asaga ay mas-uuliyaddiisa ay saaran tahay noloshiisii kale iyo gaadiidkiisa iyo meeshuu degi lahaa iyo wuxuu kala qabsan lahaa marka waxyaabahaas ayay kamid ahaayeen bal wixii aan ka qaban karno aan ummadda ka saacidi karno maadaama mas-uuliyaddeedii aan maanta anagu hayno ayay ahayd waxaan u imaanay waan wada kulanay wasaaradda waana ka wada hadalnay iyo dhibaatooyin kale tactaa waxaan ka wada hadalnay oo noo soo gudbiyeen dadka hore u jooga meesha Suudaan waxaa noo jooga qof u qaabilsanaa xagga tacliinta iyo safaaradda oo si wanaagsan noo wada shaqeynayaan ayaa iyagana waxay noo soo gudbiyeen dhibka markaa jiray oo ardada ay ka sheeganayeen oo ay kamid ahayd qaarkood oo lagu musaafirinayay caafimaad darteed kadib markii laga helay cudurro xunxun oo sida cudurka beerka ku dhaca oo la yiraahdo cagaarshow iyo wax lamid ah marka taana bal inaan wax wixii aan kala qaban karno oo xagga kaalmo ahaan aan ka weydiisan karno iyo ayaan ka weydiisanaynay oo kamid ahayd waxyaabahan kala hadlaynay ka sokow macnaha xaggii waxbarashadii iyo deeqihii oo kale waxaan kaloo ka wada hadlaynay waxaa kamid ahaa in bal naloo furo xagga tacliinta sare ayadana gacan laga siiyo xagga tacliinta sare oo ahayd wax aad iyo aad muhiim uga ah ummadda Soomaaliyeed macnaha inay helaan tacliin sare si ay u noqdaan kooxdirtii ka shaqeyn lahaa jaamacadaha ama ay u noqdaan kuwii ka shaqeyn lahaa hay'adaha kale ee dowladda amaba noqon lahaayeen macnaha kuwii aasaasi lahaa meelaha maraakista oo buxuurtii waxaa lagu sameynayo dalka marka arrimaha asaan ka hadlaynay kuwaas ay u badnaayeen wasaaradduna markaan guud ahaan ayada la hadalnay si fiican aan isu fahamnay oo shirkeennii waxay aan qabno oo dhan baan u sheegnay waxaana ku heshiinay inaan samaysano warqad la yihahdo isafgarad macnaha oo aan heshiis waxyaabaha bal aan isdhaafsanayno maxay yihiin
warqadaasna maanta waa ku guulaysan inaan wada seexno kulligeen meel maxfal aan ku seexno taasna waxay noqon doontaa warqad ku dhaqankeeda uu soconayo ilaa muddo ah markii laga bilaabo saacaddaas la seexay wasaaraddu iyadu waa wasaarad ahaan laakiin waxay aan ka codsanay noo diyaarisay in aan la kulano jaamacado waaweyn oo ayagu laftooda aan wasaaradaha waxba ka dhicin macnaha markaad aragto dadkay hayaan iyo hawsha ay ku jiraan intay la egtahay baaxadeeda waxaa kamid ah jaamacadaha aan tagnay habka haddaan ku dhufto waxaa kamid ah jaamacadda la yihahdo jaamacadda niileyn waxaa kamid ah jaamacaddan la yihahdo Sudan University Open University macnaha jaamacadda maftuuxa waxaa kaloo kamid ah jaamacadaha aan tagnay jaamacad la yihahdo Sudan alcaalamiya waxaa kamid ah jaamacad la yihahdo jaamacad Afriqiya alcaalamiya iyadana yani meelo badan baan tagnay jaamacado badan intii aan joognay fadhima jirin waxay ahayd intaa meel walba in la tago la ordo oo intii wasaaradda la weydiisanaya ayagana la weydiisay in la eg kamid tahay in deeqaha nala siiyo waxbarashada sare naloo ogolaado xataa waxbarashada sare dalkooda waa ognahay xataa ardadooda iyo dadkooda waxay u tahay lacag laakin waxaa waaye meeshii xataa lacaga waxaa codsanayna in naloo tixgeliyo annaga sida sudaaniyiinta oo kale macnaha dadka dalka udhashay oo kale oo waxa ay bixiyaan marka loo eego waxa dadka waafidiinta oo dibadda ka yimaada ay ka badantay marka meel walba waxaan raadinaynay wixii maslaxadda ummadda soomaaliyeed ama ardayda soomaaliyeed ay ku imaanaysa ayaan ka codsanaynay ana kana dalbanaynay codsayaasha iyagiina badankooda waxaan qabnaa inay la kulmeen macnaha macnaha aqbalaad inay la kulmeen dadkuna ay yihiin dad noog macnaha na jecel oo wax wanaag nala wada runtii intaan socon anaga laftigeena waajibkana saarnaa wax kale maahayne inaan laftigeena cabirno ka cabirno ka dawlad ahaan iyo ka shacab ahaan iyo ka wasaarad ahaan inaan uga mahad celino macnaha dawladdan iyo shacabkan iyo xukuumadooda dhanba waxa ay ummadda soomaaliyeed ku qabteen oo ama ay la garab taageen ama la jecel yihiinba inay la qabtaan marka socdaalkaygu marka waxaasoo dhan ayuu ku saabsanaa waana jaamacadaha aan tagnay kulligood waxaa intooda badan kulli waxaan la seexanay heshiisyo oo ah midaas safagaradka ah oo ay ku saabsan tahay xagga deeqaha xagga tacliinta sare ah ay ku saabsan tahay xagga in macnaha macalimiinta inay isu tagtagaan oo ayagana noo yimaadaan oo ama mar 3 bilood wadanka ka shaqeeyaan annana kuweena inta la keeno lagu tababaro waxyaabahaas ka wada hadlaynay waxyaabaha kaloo ka codsanayna waxaa kamid ah hataa inay maraakiz ka furtaan Soomaaliya laftigeeda oo ayagu laftooda ay ku yeeshaan centers oo wax ka baraan haddii masalan jaamacadda ay tahay niileyn oo kale hore waxay ku lahayd Hargeysa iyo Muqdisho waxay ku lahayd 2 farac faracyadaas aad moodo inaysan xoog macnaha aada u xooganayn ayaan waxaan ka codsanay bal in la tayageliyo oo la xoojiyo oo la dardargeliyo laftigeeda meelaha kaleetana laga furo sida Boosaaso oo kale iyo ama Gaalkacyo oo kale iyo meelaha qaadi karo dhan macnaha iyadana in laga sii furo ama la kordhiyo hataa hadii xataa xamar lagu dari karo dhowr kaleeto lagu daro marka taasna waxyaabaha aan ka codsanay nagana aqbaleen bay kamid ahaayeen masalan jaamacadda mid ah maftuuxada lafteeda waxaan ka codsanay inay maadaama ay hadda ay tahay macnaha trendiga hadda loo socdo oo aad moodo jaamacadaha adduunku maanta in loo socdo aakhirka la tegi doono inay noqoto in waxbarashadu ay kasoo laga soo daayo meel fog ayadana lafteeda waxaan leedahay inaan ku asaasno anaga lafteena wadankeena aan ku yeelano macnaha maraakiz noocaas oo kaleta ayaan ka codsanay waana naga yeelan inay noo yimaadaan oo nala eegaan say suuragal u tahay wax ka furiyaan waxaa kaleeto aan kala hadlaynay waxaa kamid ahaa masalan jaamacadaha aan la soo kulanay jaamacadaha kuwa privateka oo kale sida jaamacadda aan sheegaya khaaska oo loo leeyo la yihahdo jaamacat Sudan alcaalamiya jaamacaddaas waxay waa private uma Soomaaliyeed waa dhigataan kuwa badan baa lacagtooda ku dhigta taasoo kale ayada waxaan ka codsanayna waxaa kamid ahaa masalan xataa ardada dhiganaysa Soomaaliyeed in loo helo sicir jaban macnaha inay ku dhigtaan sida ardada Sudaanta oo kaleeto oo macnaha laga khafiifiyo iyo haddii laga sii khafiifin karo iyo mararka qaarkood waxay ardadu ka sheeganayeen dhib ah in lala yahay lacagtan adag in ayagana laga wadaayo lacagta adag ee la yiraahdo ku bixiya lacagta ee dalka ka jirta ninka Suudaaniga laga dhigi karo iskaga bixi lacag dollar ku bixi lama dhahayo marka Soomaaliya waxaan rabaa inuu saas oo kale u noqdaan maadaama anagu waqti aan hadda marayno uu noo saamaxayo inaan wax walba aan ka yeelano istisnaa exceptional
marka waxyaabahaas ay ahayd waxyaabaha kala hadlaynay iyo de dabcan waxaa kaleeto meesha ka muujinaynay jiritaanka wasaaraddu inuu muhiim yahay macnaha in lagala soo xiriiro wax kasta oo deeqa ah ama ku saabsan waxqabad ah in si toosa xiriir loo wada yeesho wasaaraddii iyo jaamacadahaas iyo wasaaradahoodaba barina waxaan la kulansannahay wasaaradda waxbarashada wasiirkeeda oo macnaha waxbarashada hoose isagana laftigiisa kolleyta wixii oo nooga munaasaba ayaan kala hadli doonaa ama ku saabsan tacaadka shahaadaadka ha noqoto ama ha noqoto wixii ayago inta badan halkaasi kasoo galaan macnaha inaan kala xiriirno marka waxyaabahaas oo dhan ayaa safarkaygu ku saabsanaa waxaana qiyaasaynaa inay tahay safar aada iyo aad loogu baahnaa in uu dhaco macnaha ummadda soomaaliyeedna ay faa'ido badan ka helayso deeqii waxbarashada ay aada usii kordhayaan soomaaliya loogu talagalay waxaad tagteen dhammaan jaamacadii waxaad kala hadasheen sidii bal deeqaha waxbarasho loo kordhi lahaa marka bal waxaad ka warantaa soomaalida sudan inta badan aad bay ugu badneed haddii ay sii badato maxaa markaasi dawladda soomaaliya iyo xiriirka saameynta ku lahaanayo idinka laftarkiina dalabkana dalabtay nimanka inaad deeqa waxbarasho dheeraada si dalabtaan oo kale muxuu soomaaliya usoo kordhinayaa wasaaraddii si toosana maxaad madaxda wasiirka ka tahayna maxay faa'ido u tahay iyadan u leedahay horta in aan deeqa raadino ama waxbarasho u raadino ummadda soomaaliyeed ama heer dugsi sare kuwa ka baxay ama ha noqdaan ama kuwa jaamacadaha ka baxay ha noqdaan horta waa waajib wasaaradda ahaana saaran anaga ka waajib ahaan waxaan gudanayna weye midda kale inay noo badato dabcan waxaan ugu khasbahaya anaga hadda jaamacad xukuumiya ma jirto ma hayno booskii jaamacadda xukuumiga ama xataa kuwa noo dhisan laftigooda waxaa laga yaaba in ay quality ahaan aysan gaarsiisnayn wadamada macnaha nabadda ah iyo jaamacadahooda meesha ay marhayaan iyo heerarka ay marhayaan horta taasaan ugu khasbaysa inaan aan dalabno waana run oo jaamacado badan iyo meelo badan waxaan utagayn waxay ahayd inaan kordhino intaan kordhin karno faa'iido badan waynu nool leedahay dabcan sudan waa wadan aan saan hore usoo sheegnay wax badan la qabta ummadda soomaaliyeed gaar ahaan xagga tacliinta ah waxaana ku arkaysaa hadda laftigeena dawladda maanta dhisan iyo dadkeena mutacalimiinteena kuwa badan waxaad arkaysaa sudan kasoo bartay oo kasoo baxay ayaa kamid ah saa la socotaan marka inay sii korodho waxay kordhinaysaa xiriirka wadankan aan sii leenahay ayagona jecel inay wax nala qabtaan waxna wada wadaagna ay jecel yihiin ayaan qabaa annagana inaan de aan wax la qabsano laftigeena oon ka faa'iidaysano haddaan maanta annaga u baahana berrina waxaa laga yaabaa in laisu wada baahan yahay mar walba marka annaga saas ayay tahay sababta aan u raadinayno wixii aan heli karna inaan ka helno wadankaana dee waxaan ku tuhmaynaa inuu yahay wadan annagoo kaleeto oo xagga jir ahaan iyo diin ahaan iyo mandaqadan kuwada macnaha ayagana ku yaalaan annagana aan joogno iyo macnaha meel walbaan iska shabahnaa de waxaan ku kala duwanaa soomaaliya iyo sudan baan magacun baan ku kala duwanaa wax badan baan wada wadaagnaa marka taas ayaa waxay keenaysaa in aan muhiimadda saarno wadankan oo aan leesha ayaguna waa noo jeel qabaan oo de waa doonayaanba inay wax nala qabtaan marka maxaad ku diidaysa qof raba in wax kula qabto inaad ka faaidaysato runtii hadda marxaladda xoogaa waxaan moodaa beryahan ay marayaan waan la soconaa batroolkii wixii la kala gooyey oo macana ay kala go-een ayaga junuubkii haddana meeshii dagaal ka dhacay oo waxyaaba badan oo fankooda kasoo geli jiro o dhan inuu hadda maanta istaagan yahay marka codsigeenan hadda codsanayno hadduusan xataa keenin deeqdii la bixin jiray waxaan kusii adkeynaynaa inay tii hore sii jirto haddaan naga sii badin marka anagoo la tacaatufayna ayaga laftooda dhibka haysta iyo anaga lafteena dhibkan haysta oo ah waxaan waxu raadinayna o anaga lafteena waxaa baahi jirta wey haddaan isku filannahay waxayna haysan cidna wax kama raadsaneen annaga wax bixin jirna waagii horeba mudan wasiir waxaa la isweydiinayaa deeqaha waxbarasho ee dalkan sudan laga hel laftirkooda waxaa laga yaabaa inay qaabka loo qaybinayo dadka qaarkood ay muran ka keenaan in lais yiraahdo maxay ahaatee ragga qaarkoodba dadka qaarkood oo la garanaya ayaa la siiyey alowdii wax noocaas oo kalea bal adoo maanta telefishinka qaranka si toosa lagu hadlay ugu jawaabayo bal qaab noocee baa wasaaradda waxbarashada dawladda soomaaliya ay ku bixinaysaa deeqaha waxbarasho ee ka hesha wadamada agga deeqaha waxbarashada marka laga hadlo waa run waxaa moodaa ummadda soomaaliyeed deeqda waxbarashada helideeda iyo qaybinteeda inay qaybinteeda udhib badan tahay sababto ah wax yar oo soo dhexgalay intaas oo ummada oo waxaa weye waa ayada laftigeeda colayskeeda ay leedahay dhibkeeda ay leedahay hase hatee ka wasaarad ahaan annaga siyaasad baa
aan leenahay hadda ka horna dee horaa loo soo tajribay waaba sameynay oo waxay ahayd inkastoo aan wasaaradda imtixaanka qaadaynin matalan deeqahan ka helinay turkida oo kale iyo turkida laftigeeda qaadi jirtay ayagaa galaaska geeni jirnay ayagaa imtixaanka keeni jiray ayagaa sixi jiray ayagaa soo dhejin jiray macnaha guud ahaan horta saasay ku bixi jirtay macnaha waxaan ka wadaa oo meel iska joogto la yiri iska baxa keligiin adinkoo imtixaanka xulna ka qaadan nama soo marin anaga mana arag kolleyta wixii wasaaradda soo maray saasay ahaayeen طبعا واسكت جيران dad intay meelo kala tagaan oo kale wali wadanka hadda aan joogo kala suudaanta oo kale waa maqlay kuwa badan oo ama hay'ada diiniga ka socda ama meelo kale ka socda oo ka faa'iideystay waayihii hore oo intay dalku burbursanaa xiriirada dadka la yeeshay laga yaabo inay magacaas wax kusoo qaataan iyo ururo ay samaysteen kuwaasoo kale waa laga yaabaa intay dalka tagaan annagoon ogeyn ama ay si xun oola soo baxaan turkidana saas oo kale ataa dhacda laakiin wixii wasaaradda soo mara annaga waxaan jecelnahay inaan marno qaab ummadda soomaaliyeed qancin kara oo ah inaan u sameyno imtixaankaasna ujeedadiisu ay tahay keliya maaha in la kala saaro maaha imtixaanka laftigiisa qofka ayuu ka bixi karaa imtixaanka loo dejiyey oo ah muujinaysa shahaadada uu watay wuxuu sheegay inay isleeyihiin iyo mideeda kaleeto oo ah dee dabcan wixii laga wada qaadan karo wixii waa wax tirsan oo iska yar waxa soo baxayna waa dad badan in la sameeyo intaa ugu horeysa la siiyo la yihahdo bal intiina baa hadda nasiib u heshay inaad baxdaan wixina soo gaaran aan saas ku qaybino marka waxaan qabaa saas ka wanaagsan oo loo qaybin kari lahaa inaysan jirin marka saasana wasaaradda siyaasadeeda ah howlaheedana waa ku jirnaa inaan saas qaybino iyo istaraatiijiyadaas mudan wasiir safarkaagii iyo waxyaabaha aad ka faa'iideen inta badan waxaa laga yaabaa inaad khayr ummadii Soomaaliyeed oo wadeen in aad waliba gaar ahaan dadka waxbarashada jecel inta badan dadku waxay ka duulaan dhanka waxbarashada wadan walba wuxuu ku horumaro waxbarashada bal ugu dambeyntii maxaad dadweynaha maanta ka daawan TV-ga aad leedahay oo abshira aad u wadaa oo leedahay Suudaan waxaan kala imid wax aynkaas ah aan jeclaan lahaa macnaha dadka Soomaaliyeed horta inaan aan ku gowaabiyo horta bal inay horta Ilaahay ku kalsoonaadaan meeshaan hadda ka horna waxaa soo baxday waa weydeen Turkidii oo intaa qaadaysay arday badan qaadaysay qaar baa baxay qaarna waa hareen kuwa intay baxeen waliba nagu soo noqday haddana oo ama waxay doontaa sababtoo hata ama rabsho ahaata ama caafimaad darro ahaata ama wax kale taa keentee horta nina wuxuu caadi ku leeyahay nin cid kale ka qaadan mayso marka anagu waxaan ugu bishaaraynayaa wax alla wixii Suudaan aan ka helno inaan keeni doono wadanka oo aan dalka kamid noqon doonaan deeqaha aan dalka ku bixin doono waxa hataa safarkayga hadda soo dedejinaya waxaa waa safar kale aan ugu jira oo aan ka haysan dowladda Iiraan ayada laftigeeda intoo kale aan weydiisanaynaa iyo inay macnaha deeq waxbarasho ummadda Soomaaliyeed siiso haddii aan awood u helno inaan tagno wadankaas macnaha aan helno macnaha wixii aan ku tagi lahayn laakiin waa ogna waa noo taala waa rasmi waana nala sugahayaa marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa annagu inaan ka daalayno oo ordayno waliba gaar ahaan dhalinyarada si ay ku heli lahaayeen waxbarasho wanaagsan oo joogdo sare leh dalkoodana berri ayaga laftigooda uga qayb qaadan lahaayeen horumarintiisa iyo sare u qaadidiisaba aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare mudane Professor Ahmed Aidiid Ibrahim oo u waramayay TV-ga qaranka xafiiskiisa magaalada Khartoum waxaana leenahay mudane aad u mahadsan